waa tiin aan qodax lahayn oo midho aada u macaan leh oo nebigu ammaanay midhihiisa oo daawo iyo barwaaqaba laga heli waayey. watiini tiinkaan ku dhaartay, wazaytuuni zaytuunkaan ku dhaartay. zaytuunkuna waa midho yaryar oo kuuskuusan oo kanaan cunno maaha zaytuunka aan dhahno. kan carabiga waxaa lagu yidhaha jawaafa. zaytuunku waa midhaha garasku la egyahay, waa wax kuuskuusan oo yaryar ah oo midabyo kala duwan leh. marka cuntada la cunaya khaliijka aad baa looga helaa, soomaalina marmar waa la keenaaba laga yaaba. oo saliidan oolyaliibada ama zaytuunkaa laga sameeyaa. wa duuri siniina, buurta duuri siniin la yidhaha ilaahay nebi muuse uu kula hadlay, taana waan ku dhaaran. baraka diini ay leedahay, waa meeshii towrad lagu soo dejiyey. wa haada albaladi, beledkan aan ku dhaartay, alamiini, amniga u saaxiibka ah oo qofkii jooga aan la taabanayn, oo maka aan ku dhaartay oo nebi maxamedna ku dhashay, waxyigiina lagu soo dejiyey, lagu caleemo saaray. intaasoo dhan baan ku dhaartay. laqad khalaqna alinsaana, insaankii waan abuuray, fii axsani taqwiimin, toosnita oogu qurux badan xaaluu ku sugan yahay ayaan abuuray. insaanku ka u foolxun makhluuqa kale ilaahay ee xayawaanaadka iyo waxaan aan naqaano oo dhan, qofka bini aadmiga oogu foolxun unbaa ka qurux badan. waxaad ku garan qof hadda dhihi mathalan shabeel ha layga dhigo, daawuus ha layga dhigo, male. insaanka ilaahay baa qurux siiyo, toosni. xoolaha waxay wax ku cunaan, inagu fiiri way foorarsan, ayagu 4 lugood bay leeyihiin, afkay dhulka la geli. inagoo afkeeni iyo wejigeena ilaahay kor buu u qaaday. insaankaa quruxda badan baa nahay, toosan oo taagan. xayawaankii tuur buu leeyahay, 4 lugood buu leeyahay, afkoo ciidda la geli. marka ilaahay nicmuu bini aadmiga siiyey. caqligiisii baa toosan, fakarkiisii baa toosan, suuradiisii baa toosan. marka ma sahlan. laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin, toosnita ugu qurux badan baan ka abuuray xaalu ku sugan yahay. uma intaa ka bacdi radadnaahu, insaankii waanu celinay, asfala saafiliina, kuwa hooseeya ka ugu hooseyn badan xaaluu yahay. oo waxaa weeye gaalnimuu doortay, markaasaa cadaab la geliyey. cadaabkiibaa kala haylhaylay oo gowskiis uxud buu la egyahay halayidhi. uxud waa buur weyn. marka ahlu naarku waa wax fool xun. marka quruxdii loo yeelay muusan toosnidii ilaahay la rabay kuma soconine, isagaa dib isu celiya, wax fool xun oo ahlu naara iska dhigay. uma radadnaahu, waanu celinay, ama radadnaahu ay jacalnaahu, waxaanu ka yeelnay asfala saafiliina, kuwa hooseeya ka ugu hooseynta badan xaaluu yahay. ila aladiina, kuwii maahee aamanuu ilaahay rumeeyey oo wa camilu saalixaati, acmaasha wanaagsan sameeyey, ayagu kuwaas asfalu saafiliin looma celinin oo naar lama gelinin. falahum ilaahay agtiisa waxay ku leeyihiin ajrun, ajar bay leeyihiin. ajrigaasoo gayru mamnuunin, ku la gooyo ama la galladaysta kayrkii ah. ajar aan go-aynin bay ilaahay agtiisa ku leeyihiin. kaasi waa tafsiir loo badan yahay. tafsiir kaloo waxaa jira dhahaya, insaankii toosnaa ee quruxda badnaa ee dhalinyaranimo iyo nin garhmadoobe oo xoog badan iyo soo maray. uma radadnaahu, waxaanu u celin asfala saafiliina, kuwa hooseeya ka ugu hooseynta badan, oo oday cantatabaan ka dhignay, oo cutushaho indhihii waa dhowdha, wax ma arkayo, way si yaraadeen. dhegihii maqalkiibaa yaraaday, jidhkiibaa dhadhay, wuu soo gotay. macnahaasna waa la sheegaa. asfala saafiliin aan u celinay. waa minkum man yuraddu ilaa ardali lcumar oo kale. waa cantatab. caqligii baa xataa yaraanay, kaadidii iyo wixii ma ceshan karo. ila aladiina, laakiin istathnuhu markaas muqadic buu noqon. ila aladiina, ilaa bimacnaa laakiin, hase yeeshee aladiina duulka aamanuu ilaahay rumeeyey, wacamilu saalixaati, acmaasha wanaagsan sameeyey, falahum ajrun bay leeyihiin. ajrigaasoo gayru mamnuun, kolkay duqoobaan dhallinyaranimadkii hadday ku fiicnaayeen oy cibaadaysan jireen, markay cibaadadii qaban waayaan oo sariir ku ururaan, ajarkoodii way leeyihiin oo kama go-ayo, maadaamay markii hore fiicnaayeen. famaa yukadibuka bacdu biddiin, famaa maxaybaa yukadibuka, famaa maxaybaa yukadibuka, kii been sheega kaa yeelay nebi maxamedow, bacda hada albayaan wa duhuuri aladila, inta xaqiisaa loo bayaamiyey, biddiini, bisababi diini, abaalgudka aada sheegi dartii, kii been sheega maxaa kaa yeelay. famaa maxaybaa
yukadibuka ey yajcaluka kaadiban mid been sheega maxaa kaa yeelay bacdu adiladii intay muuqatay ka bacdi bidiini abaalgudka aada sheegi ku been sheega maxaa kaa yeelay ma tihid wey. ama famaa maxay baa yukadibuka ku beenin nebi maxamedow, yani dadka ku beenin maxay yihiin bacdu intay adiladii saa u muuqatay ka bacdi bidiini abaalgudka kugu beenin. alaysa allahu ilaahay miyuuna ahayn biaxkami alxaakimiina, axkam alxaakimiintan in laga wado axkama bimacnaa atqana iyo axkama oo qadaa wuu xukumay. alaysa allahu ilaahay miyuuna ahayn labadaba haddaan maro biaxkami alxaakimiina inta wax sugta oo si qurux badan waxu samaysa allaha oogu sugidda fiican miyuuna ahayn ilaahay, oogu sanca wanaagsan miyuuna ahayn. ama alaysa allahu ilaahay miyuuna ahayn biaxkami alxaakimiina inta wax xukunta allaha oogu xukum wanaagsan oogu caadilsan ilaahay miyuuna ahayn rabbulcaalamiin. balaa wey wuu yahay, inuusan ahayn ma ahe wuu yahay wey. bismi illaahi araxmaani araxiim. suurat lcalaq aayadaheedu waa 19 wey. aayadahan u horeeya ilaa laga gaadho maa lam yaclam waa aayadihii u horeeyey ee ifkan kusoo degay. waa maalintii ilaahay la doonay bashariyada khayr inay hesho, culayskii jahligii iyo shirkigii iyo gaalnimada ilaahay inuu ka saaro, dulmigii in gogasho in la laabo, cadaalad daradii, fasaadkii in lala diriro maalintay bilaabatay wey. waa maalinta xaq iyo baadilka la kala gartay, waa maalinta cirkiiyo dhulku ay xidhiidheen, waa maalinta ilaahay khayr la doonay, waa maalinta ilaahay basharka la hadlay oo laleeyahay war waxaa yeela yaa ayuha aladiina aamanuu, saasay dantu idinku jirtaa, yaa ayuha aladiina aamanuu ka jooga. waa arin gaayat alahmiya la wey, nicmo laysa siitii u weyneyd wey. iqra akri nebi maxamedow, adduunyada kolkaa way madowda, diimihii waa laga tegay, kacbada 360 sanan baa yalo ilaah lagu sheegayo, nin walba ilaahiisa jeebku ku wataa, diintii nabi ciise u dambeysay waa lagu dheelay, wadaadaa jeebka gashaday oo ku shaqaysta, adduunkii oo dhan wuu rogmanayaa. ilaahay baa naxariistiisii timid marka. iqra akri nebi maxamedow maa yuuxaa ilayka waxa lagu waxyoonaya akri. bismi rabbika muftatixan adigoo ku bilaabanaya, bismi rabbika rabbigaa magaciisa adoo ku bilaabanayo bismi illaahi araxmaani araxiim akri. alladii khalaqa, alladii allaha magaciisa akri, khalaqa abuuray kula shay, shay walba abuuray magaciisa akri. allaha wax kasta abuuray. allaha nebigu waxba ma aqoonin, wax ma akrin aqoonin, waxna ma qori aqoonin, laakiin waxaa lagu leeyahay yana kugu adkaanine cidda akrig wax kule waa ilaaha shay walba oon jirin abuuray, marka adigana wax wuu ku akhrisiin karaa. alladii khalaq, khalaqa linsaana insaanka abuuray, min calaqin xinjirka abuuray. allahaasaa akri ku leh, waad akrinaysaa. iqra akri mar kale. wa rabbuka adiga rabbigaa alakramu, allaha deeqda badan weeye. deeqdiisa waxaa ka mid a adoon waxba aqoonin, suuratu ancaam oo kale inta hal mar lasoo dejiyo yaad sida recordkii hal mar yaad u qaban. ilaahay deeqdiisay ka mid tahay. alladii allah magac akri bisinkiisa ku bilow, callama baray, maa callama wuxuu dadka baray bilqalami biwaasidati lqalam, qalamka ku baray. qalinka ayaad ku qoraysa, wax ku baranaysaa, waxaad doontid baa warqadaa ku qori. ilaahay baa yaa baray, yani waa khadii fartii iyo wixii ilaahay idin baray. callama alinsaana insaanka baray maa lam yaclam wuxuusan aqoonin baray, wax badan uuna aqoonin. yani fiiri, suuraddan waxaan ka fahmaynaa waa aayadihii u horeeyey, waxayna ka sheekeyn alqiraa'a walkitaaba, in wax la akriyo iyo in wax la qoro. marka islaamku inuu yahay diin cilmi, diin horumar, tadawurka basharku maanta uu gaadhay, islaamku asagaa bilaabay oo yiri waxa la akriyo. nebiguna si camaliya u tarjumayo maka markii laga qabtay gaalada oo maxaabiista ah,
kiiba waxaa la yidhi aan lacag xoolo haysanin 10 caruurta madiina waxbar baa lay farta bar waa laga faa'iideystay reer Maka farta ku fiicnaa marka wax qabarashadu wax walba dhaqaalihii horumarkii tacliintii caafimaadkii iqtisaadkii askarigii wax walba waa alqira'a wal kitaaba waa wax la qoriyo wax la akhriyo haddaad maanta guri dhisi waa in naqshadii la qoro taariikhdii hore waxa inoo xafiday iyo shicirkii iyo xigmadii dadkii hore iyo ama maanta diinta aan haysanaba waa alqira'a wal kitaab allama al-insana ma lam ya'lam kallaa ina al-insana kallaadan aayadahani mar dambay soo degteen kallaa insaanku kibirkii iyo qooqa ha ka joogo ama kallaa waxaa xaq ahoo sugan ina al-insana insaanku la yadqaa inuu qooqayo an ra'aa nafsahu hudaas waa nafsahu an ra'aahu inuu is arkay darteed buu u qooqi istaqnaa mid ilaahay ka deeqtoomay oon ilaahay ba u baahnayn ina ilaa rabbika rabbiga xaggiisa unbuu ahaaday arrujca celintuna meesha qof loo noqon waa ilaahay agtiisa marka deseed ilaahay oga maarmi ina ilaa rabbika arrujca noqoshadu waa xagga ilaahay isagaa ku xisaabin ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa salla abu jahl baa wuxuu arkay nebiga oo kacbada agteeda ku tukan kolkaasuu yihi waryaa inaad dhulka wejiga aad ku xoxoqdid ma yeelayne mar dambe adoo tukan kuma arki karo marka aayaddanaa soo degatay ara'ayta bal ka waran nebi maxamedow alladii midka waa abu jahle yanhaa ka reebaya ilaa yowmi alqiyaama qof walbo qof salaad u diiday soo geli yanhaa u diidaya cabdan adoon oo nebi maxameda idaa sallaa markuu tukanayo bal kaa ka waran baa layidhi ara'ayta bal ka waran in kaana hadduu yahay kan salaada loo diidayo cala alhudaa hanuun korkii mid ku sugan waa nebiga ah ow amase amara faraya dadka bitaqwa alla ka cabsi bal ka waran ara'ayta bal haddana ka waran in kadaba midkan salaada dadka u diidaya hadduu ilaahay beeniyey watawallaa can iliimaanina uu ka jeedsaday kaasi waa tafsiir kale oo la ammaanaa jiro oo isku meel loo wada celinayo ara'ayta ka waran alladii midka yanhaa u diidaya cabdan idaa sallaa markuu tukanayo ara'ayta bal ka waran nebi maxamedow in kaana hadduu yahay midkan salaada dadka u diidi waa bizacmihi waa siduu sheegane cala alhudaa hanuun korkii hadduu ku sugan yahay waa siduu sheeganayo xaqiiqadu ma ahe ow amase amara uu faraya dadka bitaqwaa alla ka cabsi waa siday asaga la tahay ara'ayta bal nebi maxamedow haddana ka waran in kadaba kaasi hadduu ilaahay beeniyey oo watawallaa uu jeedsadayna bal ka waran alam yaclam miyuuna ogeyn ninkaasi biana allaha ilaahay yaraa inuu arko miyuuna ogeyn kolkuu yanhaa cabdan idaa sallaa uu yahay alam yaclam biana allaha yaraa iyo kulli in kadaba watawalla alam yaclam biana allaha yaraa kallaa ha ka joogo lain lam yantahi hadduuna ka reebtoomin waxa uu samaynayo lanasfacan waxaanu soo dhufanaynaa oon soo gundhinaynaa bay culimmada qaarkeed tira waan soo dhufanaynaa binnaasiyati fooda qofka fooda haddii la qabto khalaas wey naasiyatin food baanu soo dhufan oon soo gundhinaynaa kaadibatin oo beenaley beenaley khaadi'atin oo gafsan yaanu soo dhufan naasiyadiisi baa layihi waa kaadiba beenbe waa beenaley been bay sheegi khaadi'a waa tu gaftay kaadibatin khaadi'a falyadcu markaa ha u yeedho naadiyahu golihiisa dadka jooga ha u yeedho nebigaa mar abu jahl canaantay nebigaa si adag oo la hadlay kolkaasuu yihi ma anaad ihadadaysaa anigoo maka golayaasheedaba raggaygii uu ka buuxo oo laandheeranimu ku faanay marka ilaahay wuxuu yihi falyadcu abu jahl ha u yeedho naadiyahu golihiisa dadkiisa ha u yeedho sanadco anaguna waan wici doonaa azabaniyata malaa'igta naarta waardiyeysa ayaan anaguna u yeedhaynaa waa askar jeesha oo kale malaa'igta naarta waardiyeysaana u yeedhaynaa kallaa ha ka joogaa la yihi abu jahl iyo wixii lamida laa tudichu nebi maxamed oo ninkaa ha adeecin warkiisa ha yeelin wasjud u sujuud ilaa rabbika rabbiga waqtarib u dhowow ilaa rabbika rabbiga
kalaa laa tudichu wasjud waqtarib. kolkaad cidhiidhi aragtid xagga rabbiga aad, cidhiidhiga markaa waad ka bixi. bismi illaahi araxmaani araxiim, inaa anzalnaahu fi leylati alqadr, waa 5 aayadood. leylatulqadarkay ku saabsan tahay. inaa anagu anzalnaahu buu yihi ilahay waan soo dejinay qur-aanka fii leylati alqadri, sharafta habeenkeeda, ama fii leylati alqadri, habeenka wax la qadaro, waa xisaab xidhka sanad guurka. fiihaa yufraqu kulu amrin xakiim, yaan soo dejinay qur-aanka. macaani badan baa ku jirta. see loo soo dejiyey? 23 sano u degayay. macnaha bilowgiisa wuu bilowday, leylatulqadri buu bilowday, ama waa habeenka looxul maxfuudka inta kulligii laga soo dejiyey baytulcize oo samadan soka la keenay. adiga hadallo badan baa la yidhahdaa. wamaa adraaka, maxaa ku ogeysay nebi maxamed oo maa maxay buu ahaaday leylatulqadri, habeenka sharafta maxay ahaatay? leylatulqadri, habeenka leylatulqadarkii khayrun, tu ka khayr badan weeye min 1000 shahrin, 1000 bilood way ka khayr badanta. nebigaa wuxuu ka sheekeeyey nin ummadihii hore ahaayo 1000 bilood jihaad ku jiray oo marna nasanin. kolkaasay dheheen rasuulka ilahi hadda waxaasoo kale anagu xaggeen ka helna? halkan habeen baaba ilaahay siiyey. marka leylatulqadri khayru min 1000 shahrin, tanazalu lmalaaikatu, malaaigtu habeenkaa way soo degataa, waruuxu jibriilna wuu soo degtaa fiihaa habeenkaa, biidni rabbihim, rabbigooda amarkiisay kusoo degaan, idankiisa. min kuli amrin, min ajli kuli amrin, shay amar kasta dartii bay usoo degaan oo khayr ah. salaamun, habeenkaa waa hiya habeenkaasi salaamun, nabadgelyo weeye, min kuli makruuh, laga nabadgalo. ama salaamun duu salaam, waa habeen salaan u saaxiib. malaa'igtii iyo muuminiintii iyo waxun baa habeenkaa salaamta qabta ku hay, xataa madlac ilfajr, ilaa waagu uu ka baryo. salaanta un baa socon iyo amniga iyo khayrkaa. bismi illaahi araxmaani araxiim, suurat lbayina. aayadaheedu waa 8. suuraddan kolkay qur-aanku soo deganaya waxaa jirtay baahi badan baa jirtay. suuraddan nebigeenu calayhi salaatu wasalaam intuu u yeedhay ubay binu kacab yuu yihi ilaahay wuxuu ifaray suuraddan inaan kugu dul akriyo. ubay wuxuu yihi awasamaani rabbi, rabbigay miyuu i magacaabay? ubay miyuu sheegay? haa buu yihi nebigu. ubay wuu ooyey marka, ubay binu kacab.